يا أيها السلفي خذ بنصيحتي واسمع هديت إلى رضا الرحمن ودع التعصب للرجال فإنه دين اليهود وزمرة الشيطان وإذا تنازع عالمان فدعهما للشرع لا للظلم والعدوان لا تنتصر للنفس أو لمعظم من غير ما دين ولا برهان فالكل آت في القيامة وحده والحكم لله العظيم الشان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد وفدقني شناد قيبتي كوات تحنيه أن نقوم قاعد الري إذا عرف السبب بطل العجب. قيبته waxaan kaga warrami doonaa qodobada ama jamaacadan la baxday as-salafiyya Sheikh Abdullah ibn Barawi iyo ragga la midka ah taariikhdooda inaan si yar kooban aan kelmad ka yiraahdo xilliga ay bilaabmeen iyo wadooyinkii ay soo mareen iyo ashkhaastooda iyo shukhustooda ugu muhiimsan iyo akhtaadooda ama بعض من الملحوظات عليهم. taariikhda haddaan ku horeeyo waxaa jirtay dhowr iyo 80kii taariikhdu markay ahayd in la asaasay jamaaco magaceeda la yiraahdo al-Ittihad al-Islami taasoo maqsuudka iyo ujeedada loo aasaasay ahayd dadkii dacwadda waday inay dacwaddii ay madax iyo minjo u kala yeelaan ama qaabkii ay dacwadda u wadayeen inay habeeyaan oo nidaam iyo idaaro u sameeyaan. waqti yar ka bacdi raggii dacwadda waday oo runtii shay muhiima in la ogaado ay tahayna ah rag dhalinyaro bay ahaayeen 83 ama 84 maanta waxa laga joogaa muddo dhowr iyo 30 sannadood ayaa laga joogaa. ragga 40 gaaray xilliga farakuturis bay ahaayeen mucdamku waxay ahaayeen 30 iyo in ka yar iyo in wax yar 30 dhaaftay. idan waa dhalinyaro u bahoobay inay dacwadda wadaan iyadoo la garanayo wadcigii askariga ahaa ee tawradii iyo dhibka ay ku haysay dacwadda iyo diinta iyo dadka wada ay ku haysay. xaaladaas ayaa dhalinyaradaasi ay go'aansadeen inay dacwadda wadaan oo ay ku bahoobaan fidinta dacwadda islaamka. waxa dhacday 90kii markay ku soo dhaweyd wax yar ka hor intaan dawladdii aanay dhicin ama burburin xilligaa jirtay in dhalinyaradii ama raggii طلاب cilmiga u badnaa iyo dhalinyaranimada u badnaa in ay بعض المسائل ama بعض waxa weeyaan qaraaraad oo jamaacadu ay qaadanayso in la isku khilkhilaafo. waana shay iska tabiiciya rag dhalinyaro oo camal wada inay iskhilkhilaafi karayaan oo waxyaabo ama cid kasta oo hawl maamulaysa in khilaaf soo kala dhexgelgeli karayo waa wax tabiici oo dhacaya. iyadoo arrimahaasi ay jirjiraan oo aanay aad u soo bixin ayay dawladdii dhacday ka bacdi hawshii way si yara adkaatay. waxaa markaa dhacay raggii iyagu eedeynayay raggii camalka ay wada wadeen oo majority-ga ama badankoodu ay si u arkayeen طائفة yarina ay u aragtay in arrimaha qaarkood iyo qaraaraadka qaarkood oo la qaadanaya inay mulaaxadaad leeyihiin inay isku dayaan inay ka dhex baxaan oo ay samaystaan iyagu xarako u gaar ah. taasi qodobkaasi waa qodob dad badan oo dhalinyaro aan ogeyn.
markii itixaad la isku khilaafay ee raggaasi ay khilaafka muujiyeen ama mulaaxadaadka muujiyeen xaq bayna u lahaayeen mulaaxadaad inay muujiyaan laakiin qaabka ay u cilaajiyeen aynu arki doonno ayaa khaldanaa waxay isku dayeen xaraka inay sameeyaan ansaaru sunna la yiraahdo sheekh xasan calasow iyo raggiisu ay isku dayeen inay sameeyaan laakiin way u socon weyday sababta oo ah waana arinta keeni doona in waxyaabahan la dhiso waxyaabahan masaa'ishan la dhiso si ay u noqoto xaajis lagu kala sooco faysal lagu kala sooco iyaga iyo cid kale ansaaru sunna way socon weyday sababta oo ah dad isku mid ah oo isku mu'taqad ah oo acmaal dhacaysay isku qabqabsaday in aanay mid kale soconaynin waxay socon lahayd haday ashyaa jidri ah oo mu'taqadaada ay isku khilaafsan yihiin way sahlanaan lahayd inay toos ay u kala baxaan hawshii oo halka taagan xarakada ayarna ay socon weyday oo ay iska dhimatay ayaa waxa dhacay ahdaastii faraha badnayd ee ka dhacaysay deegaanada Soomaalidu ay degaan in ay ragii wadaadada ahaa ay waxa weeye maxay tahay akhtaa ay ka dhaceen sida dagaaladii dhacay ama ha noqdo kii araare ama ha noqdo kii Boosaaso iyo bari ka dhacay dagaaladaasi dabcan sida ay sheegeen ragga culimada ee waqtiga goobjooga ahaa waxay cadeeyeen inaanu midna ku dhicin dagaalada go'aan jamaacada ka soo baxay jamaacatul ittixaad go'aan ka soo baxay inaanu midna ku dhicin ee ay ku dhaceen dadka qaarkood oo tasarruf iyo degdeg ay sameeyeen iyo khata ay qaateen qaraar khata ay qaateen oo sharcanna dabcan khata inay qaateen arrimahaas ay ku dhaceen tii waxay noqotay nimankii markii horeba didsanaa ee qadaayadka qaarkood ka didsanaa inay ka dhigteen muttaka iyo shay ay cuskadaan oo ay yiraahdaan waxa weeyaan waxaan oo dhan baa dhacay waad khaldantiin ilaa ma hunaalika arkii waxa dhacay in la isku dayay oo culimadii ay isu yimaadeen oo meel walba la isaga yimid akhtaadii dhacdayna la xukumay inay khata ahaayeen cidii qaraaraad ka qaadatayna la xukmiyo la iskuna dayay in safkii dib loo mideeyo oo maadaama cidii khaldantayna khaladkeedii lagu xukumay oo waliba lagu joojiyay dagaalada la isku hortaagay qaraaraad jamaacada ka soo baxay waana shay mufaaraqa ah oo cajiiba jiddan dagaalada dhacay waxay ku dhaceen siday sheegeen dadkii goobjooga ka ahaa ee mashhadka xaadiray kuma dhicin qaraar jamaacadu ay u leeyahay laakiin waxa lagu joojiyo la isku hortaagay qaraar jamaacada ka soo baxay waa laba shay oo runtii aad u kala fog weey Sheikh Ali Warsame xafidahullah wuxuu ii sheegay dagaalkii xagga ka dhacay arare xagga markii dawladii kacaanku ay burburtay iyadoo qax iyo lagu kala jiro in loo sheegay isaga yeesha Cabdiqaadir Nuur Faarax Allah yarxamo in niman isurursanayaan oo meesha Kismaayo la yiraahdo iyo ay doonayaan in ay maaskaraad ka sameeyaan iyo meelo dad lagu ururiyo ciidamo lagu ururiyo wuxuu sheekhu ii sheegay anigoo qax ku jiro ubadkii maatadii ay wada ayaan intaan dhigay ayaan cararay aniga yeesha Cabdiqaadir Nuur Faarax si aanu qoliyaha u kala dirro waxa ay wadaan aan uga hor istaagno waa shahaada li taariikh sheekhina waa nool yahay xafidahullah idan akhtaadii markii la yiri hal saxo oo la wada fadhiistay oo la xukmiyay in waxaan khata yihiin qoladii halkii kuma istaageen waxay yiraahdeen may annagu jamaacadan iyo say wax u wado ما أقولين ولهذا مسائل دب كتمد وقتها ما تشوقين أردتنا الضباب باصار رايو واضح ما يحين وحيا حيض خلاصيد واحد نمن وحقون صدي وحكلناه العين وإني قوني وانفصالان أما ودحبحان أيوه العضي رجي هوشا شدي دبدا كودي دكتور عثمان معلم باكميدها شيخ عبد الله الديريه ابتدون با كميدها ولبعد كمتحمس كوغوها شيخ احمد طاهر ويس با كميدها inkastoo markii dambe uu iskaga gaabsaday waqtiyo dambe waxa markaa ay u badnaayeen nimankaas niman jaamica islaamiya iyo jaamicatu mulqura
دراسات عليا كودا ماستر iyo دكتوراه marka inay xooga isyara mahadiyeen oo yiraahdeen aynu kayaan mustaqil ah oo ka dhex baxsan aynu noqonno laakiin waxa adkaatay meeshii wajiga loo saari lahaa ayaa adkaatay oo laba qolo oo isku kutub dhigaysa oo isku masaa'il aaminsan si ay u kala noqon karayaan laba kayaan oo kala jira arrin adag bay noqotay mas'aladana markaa timid mas'aladan taxazubka oo runtii ay u arkeen inay noqon karayso mas'alo kala sooci karaysa oo طلاب العلمigi loo sheegi karayo oo xaajis noqon karaysa oo ah anagu xisbi manihin jamaaco manihin tanziim farqiga noo dhaxeeya anaga iyo qoladaasi gaar ahaan اتحاد oo waqti ka bacdi la baxay magaca اعتصام anaga iyaga waxa noo dhaxeeya inaan anagu iyaguna ay urur yihiin anaguna aanan urur ahayn taasi marka waa xaajiska raqam waaxida waxa kale la sheegaa waa dhacdooyin dhacay oo halkaas waxaasi ka dhaceen xaqiiqada طلاب العلمiga aanu sheegaya waa taa weey sababta oo ah wixii dhacay waxa ku filan qofku inuu qiro yiraahdo khata sharcan buu ahaa intaas kaga filan waana ka toobad keenay waana ka hadleen culimada jamaacada الاعتصام way ka hadleen oo way duuban tahay iyagoo leh wixii halka ka dhacay ee waliba aan lagu gelin qaraar jamaaco lagu gelin khata sharcan buu ahaa ummad muslimiin in hub loo laga dhex qaato arin banaan ma aha waana cadeeyeen haddaba taas hadday dhamaato maxaa soo haray albaabadii baa isku furmaya waa in haddaba xaajis uu yaalaa oo ragga qaarkoodna ay sariixiyeen oo ay yiraahdeen oo aniga shakhsiyan ay igu yiraahdeen hadday wax kastaba ka toobad keenaan oo laakiin tanziimkaas iyo jamaacada ay yihiin marnaba aqbali maayo qaarkood waxaan ku yiri haddaan kuu soo ururiyo culimada ictisaamka dhammaantood oo aan ay ku yiraahdaan sidee baan u toobad keenaa kadibna sidaad adigu jeclad ay u toobad keenaan iyadoo toobada Ilaahay loo toobad keeno laakiin si bal khilaafkan iyo hawshan loo soo afjaro haday sidaas sameeyaan ka waran oo waliba anigu aan ku ballan qaaday inaan ku keeno ma aqbalaysaa wallahi la ilaaha illa huwa madiinaan joognay wuxuu ku dhiiran kari waayay inuu yiraahdo ha u wareegaleystay nimanka lama aaminayo waxyaabo ku wareegaleystay taa waxay si akiday jalasaadkii aan ka sheekeeyay masaajidka hijrada ku yaala Hargeysa maalin aanu wada fadhinay ayaan sheekh Cabdullaahi Xaashi ayaan waxaan ku yiri sheekh Maxamed Idriis oo aad oran jirtay waxaan aaminsan yahay waxaan filayaa xilligii dawladii Sheekh Shariif inay ahayd bal hadalka uu ka yiri nimankan shabaabka ah dawladan Shariif iyo gaalaysiinaya iyo bal hadalka fiican ee waafaqsan hadalkii ahlu sunna wal jamaa bal eeg wuxuu ugu jawaabay Maxamed Idriis baan anigu aaminaa idan qadiyadu ma aha qadiyad مسائل خلدن باجيره الله صحو هدي صحانهم اخوان لن ابدا تير كان تاغن oo waa in la burburiyaa qarkoodna way sareexeen waa in la burburiyaa aanay jirin oo marka maxaa xala dawaaniga ugu soo daba fayla yani lisaanu xaalkoodu saasoo noqonaya labadii kun markii la gaaray ama ay lagu dhawaa waxay noqotay malaamixdii ama wajigii loo saari lahaa ayaa cadaaday ama muuqday waanigi sheegay doodii 799 kamid ahaan dhacday muqdisho ka dhacday in xitaa waxyaabaha usuul lagu sheegaya طالب cilmigu ku qoslayo doodaas uu Sheekh Cabdullaahi Xaashi uu leeyahay usuul baa noo dhaxaysa waxa la deedeeyay wali waanay cadayn waxba la kiilayay farabadan may cadayn waxa manaad noqon karaya may cadayn oo xitaa wanaga sheegnay inuu xitaa magaca yiri taxaddi baan ku sameeynaya caalim salafiyo ila baneeyo magac in la bixi karo markii ay tashakushay xagan
Somaliland waxa jiray dhalinyaro Yemen tagay oo Sheekh Cabdullaahi Barbaraawi ka mid ahaa dhowr sanadood ku maqnaa iyo wadaad kale dhalinyaradaas oo soo noqotay Sheekh Axmed Diidna ka mid yahay oo Sheekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i oo aan rajaynayay inuu ahaa sheekh caalim oo muhaddith ah oo runtii diinta anfacay oo ku yeeray in badan in waxa weeye maxay tahay aqeedada la saxo sunnada nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam raacay بعض المسائل oo aan aad u fahmin ka soo talaqufay ayaa yimid hargeysana u badnaaba hargeysa yimid qoladii iyagu muqdisho joogtay ee iyagu asalka u ahaa khilaafkan itixaad dhexdii ku yimid oo rag badan oo iyaga ka midna jaacada Sacuudiga ay dhigtaan ayaa jiray marka labada shaqo ee kala duwan waxyaabo badan ay u dhaxeeyaan ayaa jiray xagga طريقة cilaajinta iyo waxyaabo badan ay u dhaxeeyeen waxa dhacday marka qoladii koonfur joogtay ama muqdisho joogtay waxay damceen inay wujuud ku yeeshaan goboladii kale ama gaar ahaan Somaliland ay ihtimaam badan ay saaraan Sheekh Xuseen Cabdi Cilmi oo marka khariij ahaa Jaamacada Islaamiga dhowr 90kii ka soo baxay oo la ta'thiriyay ayaa calanka u qaatay iyo Sheekh Cabdullaahi Xaashi oo isaguna dacmo sariic u ahaa kadibna waxa la dareemay in si maqar loo helo oo wujuud loo helo shakhsiya cilmiya loo baahan yahay oo dadka isu soo taagaan halkaas markaa sheekhayaga Sheekh Cabdulkariim Xasan Xush xafidahullah oo runtii للتاريخ ملاحظات لها كلها أما صاري قارهان دقالدي دعيي حقنا ولها إنه ملاحظيه ونكس أحسنا دقالداس إنه خلد هايين وحانو كمدها Sheekh Cabdulkariim wala laga yaabaa usluubka loo cilaajinayay lagu kala duwanaa dadkii faraha badnaayay itixaadka ahaa diidana dagaalada dhacayay ayuu kamid ahaa laakiin wuxuu la dheeraa isagu sawdkiisa caali ahaa marka muu ahayn huwa alwaxiid cidda diidan muu ahayn ee wuxuu ahaa sheekhi isagu si waadix oo cad uga hor yimid ee u diidana sheekhaas markii ay ula muuqatay in aanu la shaqayn karaynin i'tisaam waxay noqotay qoladan inay gacanta ku dhigaan haddaba waxa la garay marxalad sideeba haddaba shay waaxida Burcay Hargeysa iyo gobolada Soomaaliland la isugu xidhi karaa dhalinyaradii baa laga keenay Hargeysa waxa lagu xidhay oo rabti looga dhigay in dacwadan ay mid noqoto magaca salafiyadana ay sidato ashkhaasta mu'tamadka ahna ay noqoto ashkhaasta ugu muuqashada badan ama u ololaynta ama cilmiyan kay doontaba ha noqotee sidaas ayay ku dhisantay oo hawshani aan anagu raayul cayn aanu arkayno aan taagnay ay ku dhisantay بعد ذلك waxa dhacay dhowr 90kii hawshii inay marka ay sii adkaato tanziimkii inuu dhismo inuu suud yeesho inuu atbaac yeesho inuu maraakis iyo masaajida leh yeesho uu noqdo tayaar jira oo waxa weeyaan ithbaat alwujud sameynaya ولهذا waxa ku yimid markii ay tayaarnimo u sameysmeen waxa ku yimid in maraakistii Yemen ay ka yimaadeen in iyaga istidaam u ka yimaado oo qaabkan ay u tashakuleen iyo qaabkii markaas damaaj yaalay inuu yahay laba dariiqo kala duwan oo marka halka ay ka muuqato qaabkii markii hore lagu soo galay iyo qaabka xaalku noqday in furuuq u dhaxayso qaabkaas ku tashakulay kadibna damaaj iyo culimadii Yemen sidaas ayaa waqtiyo badan hujuum sharisi uu kaga yimid oo isku dhexdaadiyay waqtiyada qaar kood sababtoo ahna waxa weeye qaabkan ay noqdeen iyo qaabkii ay damaaj la doonay ama ay damaaj ahayd ayaa furuuqi u dhaxaysay oo kala duwanaaday halkana waxay noqdeen tayaar jira oo wujuudkiisa leh oo kala dambeyntiisa leh
nimankan waxaan hore u tilmaamay maadaama cunsurkaas ay dhiseen annagu urur ma nihin dadka kalena waa urur annagu jamaaca ma nihin dadka kalena waa jamaaca ay dhiseen waxay uga dhigeen xaydaam uga dhigeen dadka kale cidda u tagtaa waa lagu tabdiicinaya oo waxa la yiraahdaa tacaawun maca al-mukhaalif oo waxay iftiraadeen oo waliba san horaba u tilmaamay jamaacatu al-i'tisaam ay raqam waaxid agtooda ka tahay cidda ay hujuumku ka dhaxeeyo اعتصام عدي وتكتا محاضرات لا سميسا ee la gasha ee dacwad la fidisaa inuu iyago kala noqonayo taasina waa teed lagu ilaalinayo dhalinyaradu inaan dacwad ka soo jeedin ama aanay ka qayb gelin waxa dhacday isweydiin le nimankan iyo tanziimkan iyo munadiriin waxay badan ku celceliyaan waa kuma ninka anagu aanu ku daba faylaa laba siyood ba dadka loo maamulaa tanziimaadka waadixa iyagu aan sirriyada ahayn iyagu way cad yihiin oo shakhsi baa la magacaabay wax la yiraahdaa hebel weey saadaradeed atbaacda oo dhan way wada garanayaan dacwadan ay wadaan ra'iiskeedu ama mudiirkeedu ama mushrifkeedu inuu hebel yahay oo jamaacaadka wuxuu waadix yihiin jamaacaadka sirriga waxa lagu yaqaanaa shakhsi lama magacaabo shakhsi لما مقعابه عدد من الأشخاص oo iyagu hoosta iska og oo si u dhismay ama waxay ku dhismaan inuu mawduucan mutaxammis ku yahay oo aad hadalkiisu badan yahay ninba ninka uu ka radinta iyo qaylada badan yahay buu ramzi ka noqdaa ama shakhsiyad cilmigiisa ay ixtiraamayaan oo isleeyihiin kama maarantaan labada shakhsiyadood oo isu tagay ayaa nimanka maamula marka xaqiiqada baa muhiime in aad mudiir kaliya yeelato iyo cadad mudara oo waxa weeyaan la isla yaqaana ay jiraan oo amalkoodu uu qaydayo cadeynay inay mudiirayihiin de wax farqiyo labada soo u dhaxeeya ma jiraan waana tilmaamay majaalisteedii hore in shir loo baajin gaaray li ajli hebel baan imanayn oo lagu yiri hebelow Dr. Uthman Muallimow shir aadan adigu furin ma furmayaba waa suuro cadeynaysa in cid muayyan ah hawshu ka goodo waqaa'ic badan bay leedahay Sheikh Hussein Abdi Cilmi masaajidka sunne go'aan uu isagu leeyahay ama hala istiqlaal ama ha ku soo qanciyo culimada kale kama socdo kamana dhici karo cid aanu isagu raali ka ahayna waa laga yaabaa waqtiyada dambe markii ahdaaf badan dhacday inuu xogaa yara daciifay laakiin suuragal ma Sheikh Uthman Muhammad Ismaaciil oo iyada oo la sito aan ka badbaadiyay oo aan gurigayga ugu yeeray oo habeenka wixii Sheikh Hussein Abdi Cilmi uu ku lahaa isaguna uu garanayo ana aan garanayo haddaanu xusuusnaynaan xusuusinayo la lahaa waxa weeye noo tanaazul maaha ku qanac mas'ala cilmiya noo tanaazul waxa dhacday maalmo ka hor inta aan la soo xiragelin Sheikh Uthman in Sheikh Hussein Abdi Cilmi inuu yiri Sheikh Uthman waan fahmi la ahay masaajidka sunna waan ka saaraya min la leeyahay masaajidka marka baawarka uu sida ku leeyahay muxuu yahay masaajidka cid dhistay wala garanaya baawarka uu sida ku leeyahay maxay tahay baawarka Uthman Muallim uu leeyahay la leeyahay shiraadan furin furmi maayo muxuu yahay taas waa qodob marka la isu yimaade la leeyahay macniyiintii baa loo baahan yahay cidii hawshan lahayd macniyiintu waa cidii hawshan lahayd ee la leeyahay Nairobi na cukaasha laga sugayaa malhablaayina hebel baa laga sugayaa billaahi calaykum marka la leeyahay hebel baa malhablaaye laga sugayaa malhablaayada hebelkaasi ma kaligii baa ku nool wax salafi oo culama ah ما أنت كلا علماء ويكونوا شيء علماء كلا دم بان سلفيين أهين ماشى كنول وكل جيبك كصوب تمثيلك وكم مثلا إلا مسألة علمية يلا جماعة الله شيخ عبد الله بربراوي فجور في الخصوم والسمعين
oo wuxuu ku sameeyay wuxuu ka dhigay markii aan kelmadii muqtadabka ahayd ee aan tilmaamay inay shiraan wuxuu ka dhigay shir kaliya inuu ahaa suura waaxid shir waaxid mar waaxida dhacay oo isaguna uu ka maqnaa taa inay ahayd buu sawiray sanad iyo xilli aydan kulmin ma jiro inaydan cilmi mar walba isugu imanna waa la garanayaa waxa isugu timaadaan halkaynu kaga dhufanaa iyo xagaynu dacwada iyo maxaynu hebel sidaynu u radinaa iyo waxa weeye hebel baa la fahmi laayahay iyo dacwadii sidee baynu u tatwiirinaa iyo inta jamaacadka kale bay ka shiraan bad ka shirtaan shir mar kaliya dhacayna ma aha wuxuu dhacaa sanawiyan buu dhacaa xajka wixii isugu yimaada marka xajka intaas soo culamo Soomaaliyeed oo kala duwan oo aad hargeysa qaarkood ay kula joogaan oo culamo ummadda oo dhan ay ictiraafsan tahay oo uu kamid yahay mufti diyaar Soomaalilandiya Sheekh Dirir Maxamed Umar Dirir oo ma ka imanayo ee aad gooni u shiraysaan ee waliba xajkii ugu dambeeyay imaaradii uu deganaa sheekhu idukuna xagga salaad ka kareysateen ee aad shirayseen Sheekh Maxamed Cabdi Dhaahir iyo gobolada iyo wadamada isaga timaadeen bal mas'alada cilmiga aanu Sheekh Dirir garanayeen aad xalinayseen maxay tahay hawsha dacwadeeda ummadda anfacaysa Sheekh Dirir aanu garanaynin ee aydan ugu yeedhin isagoo dabaqaydin ka hooseeya degan maxay tahay in dhaal isqabta ma ah waad ka soo qaado shir oon mas'ala yar oo cilmiye iyo nin qofku waxaan u yeeranaa wixii uu mutakhassis ku yahay annaga u yeeranaa wees macnaaha annaga adigu ay ah marka lagu celceliyo kalimatu salafi annagoo salafiyiinta hadaanu nahay laba mid uu wax u dhaxeeya ma jira inaad leedin annaga ila annaga baydin khilaafsane oo masaajidadiina nooma ogolidin waad ogtihiin inaanu ittaqillaah dadka kan ilaahno ittaqullaah kana nooma ogolidin imma inaad tiraahdaan annaga baa salafiyiin ah inta yadan asmaadan aan sheegay ayun baa salafiyiin culimada kale hargeysa jooga iyo buraayo jooga ila saanood jooga ee boorama jooga salafiyiin ma aha kuwa inaad ku dhiirato dadka u sheegto iyo inaad qirato salafiyadu ma aha uga ma jeedo tii sunnada lagaga baxayay waa magac anagu aanu sidano urur gaaro cid gaaro isku qanacday baanu nahay waana sida xaqiiqadu tahay طاعة مليهن طاعة ودليدهن أمر ينهينا ودليدهن أمر ينهينا ودليدهن أو ما أنت مساجدة هيسان iyo qaraaraadka dacawigayda soo maraya qaraar baad ku qaadataan atbaacdiinuna way ku adeecdaan inay ku adeeci waayeen qaraar baad ka qaadataan waxa tiraadaan waa nin la soo hayo iyo waa nin wax ka sii yihiin nin mumayaci waxa tiraadaan marka arintu way cadahay waa urur jira ama jamaaca dacawiya oo tariiqada ku asaasantay qadiyadan ay ku celcelinayaan waa qadiyada isu haysa hadday mas'aladan ta'siiliyaan Sheekh Xuseen Cabdi Cilmi afkiisu igaga yiri wuxuu ugu yiri Faysal hadaad sidan masaa'isha u taqriirinayso aan kula qaadano dadku way kala dareerayaan waxaan ku hadaanay xaq ku wada joogin haba kala dareerka u fiican waxyaabaha ugu muhiimsan ee akhtaada ay leeyihiin طبعا انا waxaan aaminsanahay lil adl wal amana وإخوان لنا إخوة من أهل السنة والجماعة قد بغوا علينا كما صارنا السنة إيضا لغياب أقواش أهل العلم سيدي هذا الكي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلمامي عدة تعصب شديد كل عدا أما وحن إلهي رسول كيسو ولا يبرا كحر أما ضدك كفوغية أما كسو دويست إني من أهل التفرق والاختلاف أيهين الشيخ الإسلام ابن تيمية عينك أو قرري هذا وحنا مسناهي ومن أهل السنة وإخوان لنا وحنا نسكوها يسنانا وحنا كوها يسنابا كلية وحكا لما هي ظلمي قاول لنا كتشوغا ظلمي عددك كوها يسن كتشوغا أخطاء يكون عن وحكم إذا تسطر كي خفاقة أمر كود وقرصوني هاي وضدك كلا يكون آديان إن أنا يهين وحنا عصوصتها مدحنا قار كود من مدحوينها ayaanu bari aanu geeyay si ay ugu nasteexayaan
halkii nastaxal laga sugayay waxay dabcinaysa sharaxaan annagu hadaan sidaan annagu sidaasaan u nahay madaxweynaha markay bixeen wuxuu yiri wanimakan maxay ahaayeen waxaan ku celcelinayaan salafigu muxuu ahaa marka wuduuxu inuu wuduux noqdo maanta cid is weydiinaysa jamaacatu al-i'tisaam ama mu'assasatu al-karam kay doontaba ha noqotee waa mu'assasa iyo organization leh tasriix wasaaradda qorsheynta qaranka ka haysata marka tasaturka iyo khafaagaasi iskaal badan buu iyaga iyo atbaacdooda ku keenay waxa kamid ah al-ghuluw fi al-ashkhas wa fi ba'd al-masaa'il ashkhas taqarkood in ghuluw lagu sameeyo xagga madxiga iyo xagga dhamigaba xagga madxigana in ashkhas lagu dul wareego leeyahay hebel qofkan darsigiisa soo xaadirin waxba ka siyo lagaba shakiyaba ama ba'd al-masaa'il sida at-ta'awun ma'a al-mukhalif مسائل قاركو ست باعا وان لا dareemaynin bay uga soo noqdaan masalada taswiirta iyo video TV laga soo baxo meeshay ka taagnaayeen waa la ogaa jamciyaad khayriya mal asaasi karaya meeshay ka taagnaayeen waa la ogaa maanta waxaad moodaa wixii ka tagay inay qalaynayaan wixii tandiirkoodu barigii hore u diiday inay maanta qalaynayaan oo loo dhakarayo dadka bayaga ugu jamciyada badan maanta marka quruwigaasna wuu jira waxa kale oo jira at-tafarruq wal ikhtilaf suhula في التفرق والاختلاف ولذلك تشردمك إيا كالتقو آد بوغو سهلين إن قفك ويسكي لأهدو هبل سلفي معها هبل وحزبي أو وقتش دوا مبتدع آد بوغو سهلين تحي وبيا كوب بيو لعبا وغو سهلين إذا اللوغي هاي ماشا أي وحوى شرعي وقودي إن قف حكم لقود تشيو وحكم إذا نشر العداوات والبغضاء بين المؤمنين إن تدكي مؤمنين تأها anigu halka uga ma jeedo cid khaldan anigu ma badoodayaba laakiin cid aadan waxba ku haysan annaga waxay maanta nagu haystaan anagu waxyaabaha ay tirinayaan ay leeyihiin dhowr iyo 90kii iyo dhowr iyo 80kii anagu ma baanan xaadirin be waxay nagu haystaan cid ay leeyihiin way khaldan yihiin ayaanu khaladkoodii nooma cadaanin inta lagu haystaa waa inta intaas waxay dhashay cadaawad iyo bagdaa iyo juhuud in lagu bixiyo dhalinyarada la xashriyo leeyahay hebel iska ilaali hebel waasida juhuud inta la eege dhalinyaradii cadaawadka iyo bagdaaga lagu sameeynayo cid uu og yahay oo aanu ku dhiiran karin inuu yaado waa mubtadi ama aanu ku dhiiran karin inuu yaado mas'aladan uu igu haystaayo mas'aladu keeta way inuu hadana waxa weeyaan uu sameeyo cadaawad uu sameeyo iyana waxa weeye akhtaad ay leeyihiin تعصبka kamida iyo taqciid qawaacid laysat min qawaacid ahli sunnah wal jamaa qawaacid badan maadaama hadafku uu yahay cid iska celin qofkii waxa uu ku kalifayaa inuu sameeyo qawaacid uu doonayo inay u noqoto mubarrir u noqoto waxan uu doonayo inuu sameeyo aad bay qawaacidaasi ay u badan yihiin waxa kamida al-udhr bil ilm أهل العلم waxay yaqaanaa waxa la al-udhr bil jahl waxa laga yaabaa qof ay ka yara gabanayaan inay yiraahdaan hebel waa loo cudur daaraya waayo isagu waa nin de ahlul cilmiya shay macruuf kale yaqaanaa waa al-udhr bil jahl ka jaahilka mudan in loo cudur daaray ka caalimka Allah ma cudur daaro yani marka masalada muayyanka laga hadlayo iyo qawaacid ay kamid tahay qadaayadkan sheegaynay ah in jamciye in la sameesto iyo in laga dhigo shay lagu bidcoobayo at-taawun ma'a al-mukhalif in laga dhigo in lagu bidcoobayo iyo waxyaabaha kale la midka khulaasadu waxay tahay marka taariikhda yare muqtadabka ee basiidka ah ee ishaaraadka ah waxaan uga goleeyahay inaan iyagu way og yihiin atbaacdooda aan dareensiyo qaradka iyo ujeedaduna aanu leeyahay gaar ahaan waa in dadka muslimiinta ee dacwada iyo masaajida iyo diinta ku shuqlaneen inay ugu horeen ay ku dadaalaan kitaabka iyo sunnada iyo raacitaankiisa waliba ay ku raacayaan fahamkii asxaabu Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin iyo in daaladu ay noqoto xaq in la raadiyo ashkhaastan aan la eegin xaq la eego xaq markuu cadaadana xaq la qaato xaqana duruqda lagu ogaado waxa kamida mubaaxaadka cilmiga iyo soo fariisidka
waxa kaloo muhiim ah oo aan uga gol leeyahay in khilaafkani bal inuu xad yeesho oo aan musaahamo maadaama duruq kale oo fara badan aan soo maray ay waxba anfici weyday bal kani inuu noocan ma uu noqdo mid wax iftiimiya cid gaara oo anigu aan dan ka leeyahay oo aan ahayn in saaxadu hagaagtaana ma jirto ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynayaa inuu wixii aan ku khaldamay inay ii dhaafo wixii aan saxayna ilaahay iga abaalmariyo saaxadana u islaaxiyo wallahu tacaala aclam وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.